xuska 18 May ayaa laga xusay dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana xafladaasi xuska 18 May soo qaban qaabiyay safiirka Somaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed haween weynaha jaaliyadda reer Somaliland xafladani xuska 18 May ee 27 guurada ka soo wareegtay markii dalka Somaliland ka soo go'ay wixii la isku oran jiray Soomaaliya ayaa waxay ka dhacday hoolka weyn ee ku yaala bartamaha caasimadda Djibouti sadarka igu tiin shanta la isku keenay baa sheeka la igu daray xanuun igu raagay iyo xisad baan ka helay ninkani baaqay buuga igu qorow anu waa qasla markaan qaybta igu dartay masabi baad ahayd markii suuga la isla dhacay barbaarti la laayay iyo baashi nacab ku helay xasuuqi miyadi lowdan xumaanta taray waxaan xamaray ku yiraani xogtayda hoo xumaan mooyaan u xiiso kuma qabo ahayd iyagoo nool kuwii ilka lagu daldalay xunya wuxuu ku dhalay xasuusteeda igama bixin xasuuqiina siyaasiga uu ku yaal munaasabada xuska 18 May ee 27 guurada gooni isu taaga dalka Somaliland ayaa waxay ka sii balaadhnay sanadkani sanadadii hore ee laga xusi jiray dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ciyaarta caanka ah ee sayliciga sidoo kale fanaaniinta xidigaha geeska Djibouti ayaa ka heesayay munaasabadaasi xuska 18 May waxaa khudbado kala duwan ka soo jeediyay safiirka Somaliland u fadhiya dalka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed barasaab ku-xigeenka gobolka Selel iyo mas'uuliyiin iyo xildhibaano ka socday dalka Somaliland oo kala qayb galay xuska 18 May ee laga xusayay dalka Djibouti jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan wadanka Djibouti 18 May ka sheekeeyay runtii kuma noqonayo waa maalin qiimo leh qarankana qiimo u leh hadii la yiraahdo marka waxaan idin rajeenayaa khayr bashbash barwaaqo insha Allah anagu ictiraafaysan sanadkiisa ciidamada qarankana aanu ducayno ciidamada qaranka aanu ducayno mar walbana garab istaagno ciidankeena qaranka aan ku soo khatimaya halkan waxaan u mahad celinayaa guddigii qaban qaabada oo runtii aad iyo aad uga soo shaqeeyay amran tiimkeeda samsam maxaa ahayd aamina ma dhamaystiri karo iga raali ahad magacyada kala hadaan loogo inamadii qiimaha lahaa runtii aad iyo aad xiriiriyayna weyn runtii aad baan u mahad celinayaa mas'uuliyiinta qaranka barasaab ku-xigeenka Cabdirasaaq rag badan oo runtii halkan jooga ka yimid Salal aad baan u mahad celinayaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa guddiga qaban qaado rag iyo dumar balaha waad mahadsantahay sida wanaagsan runtii aad ila shaqaysan aad baan u mahad celinayaa Somaliland markay isku tashatay iyadoo adduunka aan gacmo wax tara aanay ka helin waxa uu qabsoomay marka laga bilaabo shirarkiis daba jooga ugu muhiimsanaa shirkii baaxadda ahaa ee Boorame nabadgelyo dabdhigii ay sameeyeen ciidamo ay dhisteen structure dawladnimo ay salka u dhigeen waxa intaa u sii raaca iyagoo isku tashanaya inay mar walba ku xabaabuli jireen inay daris wanaag la yeeshaan dawladaha jaarka ah aan balyeynaya dhammaan ummadda reer Djibouti iyo dadka in Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dad walaalo ah oo kamid ah Jamhuuriyadda Djibouti ay tahay rukunada ugu waaweyn ee ay ku taagan tahay Jamhuuriyadda Somaliland waxaan sidoo kale halkan aan balyo uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marwadiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil iyo marwadiisaba 27 guuradii ka soo wareegtay maalintii ay la soo noqotay dawladnimadeeda qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Somaliland runtiina ah wax lagu farxo oo ah inaan ku faano runtii wax badan u soo joogay taariikh fiican ka sheekeeyay oo isagu warkii iyo wixii soo dhacay halkan ka sheegay
waxaan ku soo koobayaa oo aan idin leeyahay Ramadaan Kariim ilaahay dabaylaha iyo duufaanada jirana hareeraheenna ha mariyo qaatay la mid tahay 18 May waxay la mid tahay maanta Yemen South Africa Ghana Kenya ay xornimadooda wada qaateen bay noo mid tahay anaga that's why aynu caawa halkan ugu dabaaldegayno intaasoo qof wareeji ku tirsan yimaadeen 18 May taariikhda ku noqon mayno ولكن 18 May waxay ka jawaabaysaa jawaabta ay bixinaysaa waa mid adag u khusaysa waa mid reerta ku khusaysa waa mid inteena halka fadhida khusaysa waa mid Soomaaliya khusaysa waxa ay ka jawaabaysaa oo ay macno badan u samayn doontaa sidii sheegayay Maxamed Jaamac Waale telefishinka qaranka Somaliland Djibouti